السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan joognaa galabta iskuulka Agoonta Al-Mustaqim oo ay taageerto hay'adda Al-Mustaqim Foundation. waxaan rabnaa inaan soo dhaweyno oo aan u mahad celino culimada soo booqatay Sheikh Suldaan iyo Sheikh Saciid, laba sheekh oo walaalo ah meel dheer nooga yimiday in ay soo arkaan iskuulka iyo hawsha aan meeshan aan ka qabanno. waa soo dhaweynaynaa insha Allah kelmada ayay ka dhihi doonaan aad ayaan ugu mahad celinaynaa. adinkana waa mahadsantihiin maadaama aad isku soo baxdeen oo aad soo dhaweyseen culimadeena. waxaan ku faraxsanahay inaan marka hore soo booqannay iskuulka Al-Mustaqim. waxa la yiri laysa al-khabar kal muayana isku mid ma aha maqalka iyo aragtida. marka in badan waan maqalay Al-Mustaqim, maantana waan u joognaa, waan taaganahay ardaydiyan aragnaa shaqada la qabtay waxaan u jeednaa aragnaa. marka khayr Allah ka siiyo dadkii ka shaqeeyay oo ugu horeeyay ustaad Cabdulxakiim. runtii magaca Al-Mustaqim waxa way meel badan uu gaaray. marka dadka waxaan ku dhiirigelinaynaa sida uu idin soo gaara shaqo wacan ayaa halkan ka socoto in looga qayb qaato oo la taageero af iyo adin bal lagu taageero. khayr Allah idin siiyo ardaydana arday ma sha Allah ah oo maxal dhihi jiray waxbarashadoodii socoto qiimo badan ayaa muuqata. marka walaalaha hawlwadanada ana aadan uga mahad celinaynaa hawsha ay wadaan. jazakumullahu khayr. waxa farxad weyn ah inaan galabta booqasho ku nimid iskuulka Al-Mustaqim. sidoo kale waxa farxadna dad danle ama agoon iyo intii la mid ah hor taaganahay. waxaan isdareensiinaynaa xadiidka nabiga kaleey salaatu salaam ahaa ana kaafil yatiim kaatayn fil janna. qofka hal agoon kafaalo qaado iyo aniga waxaan nahay labaas farood kale fil janna. marka in laga faa'iisto waan rajeynaa insha Allah mujtamaca Soomaaliyeed ama bulshada Soomaaliyeed meel walba joogaanba. waxa kale farxad kale noo ah in dadka Soomaaliyeed fahmayaan inay isku tashadaan. hadda maamulaha wuxuu noo sheegay dalka gudihiisa gobolada qaarkood inay jiraan dad kafaalo qaadayo ilmo oo tusaalahan gobolada dhaxo kale camal ama Hirshabeelle kale camal ay jiraan dad ku talagalayo inay canug Soomaaliyeed oo agoon ay kafaalo qaadaan. marka taas lafteeda waa natiijo fiican ama guul aad oo horumar leh way. aad u mahadsantiin intii kale waxaan ugu baaqayaa aragto ama ogaato inay gacan ka geystaan. aad u mahadsantiin wa shukran lakum wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Mustaqim Foundation waxay mas'uuliyad iska saareen in ay caawiyaan caruurta agoonta ah oo ay dabaraan waxbarashadooda, buugaagtooda, qalimaantooda iyo dharka iskuulka ay ku dhigan lahaayeen. iyaga oo kaashanaya dadka Soomaaliyeed waxaad sanadkii bixin kartaa $360 ama 6 bilood 180 ama xitaa 3 bilood $90 oo kaliya si aad u caawiso wiil ama gabar yar oo agoon ah oo aan haysan waxbarasho iyo garab. adigoo helaya xiriirka qofkaad waxbarashadiisa damaanad qaaday. waxa kaliya adduun iyo aakhira ku anfacaya waa sadaqo. waliba agoonta waa laga dardaarmay shaah iyo shaxaad shilimaad aad ku bixiso ha ku badbaadi waynin qof dhan mustaqbalkiisa.